Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal kusoo dhawaada wadajir media subscribe inoo saara soo dhawaada Israa'iil oo Gaza ku riday bambooyin oo u dhigma 2 qunbuliyeed nuclear bombs 40,000 oo ciidanka Israa'iil ah ayaa ku duulay Gaza waxayna qaaday weerarkii cirka ugu ba'naa taariikhda dhow ee la xasuusto. Waxa ay duqeysay 12,000 goobood oo masjid, isbitaal, iskuul, jaamacad, guryo iyo goobo ganacsi isugu jira. Waxa ay hay'adda Euromed Human Rights Monitor sheegtay in Israa'iil ay 25,000 oo tan oo qaraxyo ah ku riday Gaza, kuwaasoo u dhigma 2 qunbuliyeed 2 nuclear bombs. 2 milyan iyo bar ruux ayaa ka qaxay guryahooda, in ka badan 18,000 oo rayid ah oo 6,000 ay carruur tahay iyo 5,000 oo haween ah ayaa lagu dilay weeraradaas, halka ay Israa'iil jartay korontadii, biyihii, isgaarsiintii iyo cuntadii. Waa olole fal ciqaab wadareed ah oo ka dhan ah shacabka Falastiin. Istaraatiijiyadda ciqaab wadareedka horey ayay dunida u soo martay, oo dagaalkii labaad ee dunida ayaa duqeymo aan loo meeldayin lagu garaacay magaalooyinka Hamburg oo lagu dilay 40,000, Darmstadt oo 12,000 ku dhimatay, iyo Dresden oo 25,000 lagu dilay. Ku dhawaad 58 magaalo iyo degmooyin ayaa la duqeeyay. Ujeedkana wuxuu ahaa in Jarmalku isdhiibo, shacabkooda la niyad jabiyo, kuna kacaan Hitler, balse waxay ka qaadeen adkaysi, isku duubnaan iyo taageero aan hagar lahayn oo ay ku difaacdeen gobonimadooda, sharaftooda iyo dadnimadooda. Hitler qudhiisa ayaa taa ka hor duqeeyay London iyo magaalooyin kale ee Ingiriiska ah, isagoo dad 40,000 ka badan ku dilay duqeymahaas, dalbadayna in Ingiriisku isdhiibo. Laakiin ra'iisul wasaarihii Ingiriiska Winston Churchill ayaa diiday. Taa beddelkeedana waxay ku dhiirrigelisay Ingiriiska inay abaabulaan dadaal sanado ah oo ay weheliyaan xulafadooda Mareykanka iyo Sofiyeetka si ay uga hortagaan oo ugu dambeyntii u qabsadaan wadankii iyaga duqeeyay. Runtii weligeed taariikhda ma dhicin olole duqeyn cirka ah oo sababay in shacabkii la bartilmaameedsaday ay ka gadoodaan dowladooda. Mareykanku marar badan ayuu isku dayay xaaladdaas, waxbana uma tarin. Intii uu socday dagaalkii Kuuriya, Mareykanku wuxuu burburiyay 90% korontadii waqooyiga Kuuriya. Vietnam wuxuu dhulka dhigay waqooyiga Vietnam. Dagaalkii koowaad ee Ciraaq, 90% wuxuu burburiyay korontadii Ciraaq. Haddana kiisaskaas midkoodna dadku kuma kicin dowladahooda. Dagaalka Ukraine ayaa ah tusaalaha ugu dambeeya. Ku dhawaad 2 sano, Ruushku waxa uu doonayay in uu ku qasbo Ukraine inay isdhiibto. Weeraro ba'an oo cirka ah oo lagu qaaday magaalooyinka dalka oo dhan, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo rayid ah, laguna burburiyay in ka badan 1.5 milyan oo guri, kuna barakaceen ilaa 10 milyan oo reer Ukraine ah.
iska daa inay shacabku niyad jabaan oo ay madaxdooda eersadaane. Shacabku waxay ka qaadeen isku duubni, adkaysi iyo niyad xoog leh inay kula diriraan Ruushka, garab istaagaana hoggaankooda. Mar haddii maanta 193 dowladood ee Qaramada Midoobay ay ka codeeyeen Israa'iil, markii laga reebo 10 uu Mareykanku ku jiro, madaxweynihii Mareykanka uu qiro in Israa'iil ay taageerada caalamka luminayso oo isaga iyo Netanyahu ay ka dhex tafan tahay. Iska caabintii Falastiina la loodin yahay, balse ay ku biirayaan kuwii waalidiintood, walaalahood, xaasaskooda iyo ubadkooda la laayay. Waa hubaal in shacabka reer Falastiin ay taariikhda ugu marakacayso inay guuleysanayaan si kasta oo ay ciqaab wadareedkii ugu ba'naa u maraan. Ku gubasho iyo gardarro garab og, iyo ku fiirsashadana u wajahayaan. Faaladan waxaa qoray xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoray, anagana halkan ayaan idinku soo gudbinaynay. Marka walaalayaal, subscribe noo saara, commentigana ugu duceeya walaalaheena Falastiin ee 3 bilood ka badan dagaalada lagula jiro. Bishii 3aad ayaa socoto walaalaheena Falastiin oo commentiga ugu duceyno, guul Allah ka siiyo, Yahuudda Allah baabi'iyo, walaalaheena Falastiin guul ayaan dhahaynaa. Marka soo dhawaada walaalayaal.